kugu soo dhaweynaynaa mar kale sidoo kaleeto hambalyo injineer maxamed jaamac soo dhawaada ayaan saaxiib yaan idin leenahay insha allahu tacaala asxaabta kaleetana waxaan rajaynayaa insha allah inaad gaarsiin doontaan meetingkan ama zoomka macaawa soo dhawaada injineer maxamed ayaa ayuu yidhaahday ninkani abline magaciisuna waa maxamed cabdi hambalyo sidoo kaleeto qofkan wuxuu leeyahay hambalyo injineer maxamed jaamac maryama aadan ayaa la yidhahdaa laakiin ablaynkeeda ma aynay soo qorin naciimo cumar ablaynkeeda ma aynay soo qorin dhammaantiin fiid wanaagsan mar kale insha allahu tacaala maasha allah hambalyo soo dhawaada waxaan rajaynayaa insha allah inuu shaashadda ii sheer garayn doono injineer hanad watahay congratulations ayuu yiri qofkani injineer maxamed jaamac magaciisana waxaa la yidhahdaa usame waad mahadsan tahay sidoo kaleeto kaafiya waxay ku leedahay injineer hambalyo liida maxamed jaamac injineer maxamed xasan sidoo kaleeto qofka soo qorayna waxaa la yidhahdaa cabdulwaaxid hambalyo ayaan dhammaantiin idinkuna idin leeyahay insha allahu tacaala barnaamijka waxaan rajaynayaa inuu si qurux badan inoogu socon doono isla mar ahaantaana ma garanaysaa aynu halkaas kasii wadi doono sio mataqaanaa maxamed jaamac hambalyo ayaan ku leeyahay sidoo kaleeto asxaabta sharafta leh ee halkan inagula jirta soo dhawaada ayaan idin wada leeyahay insha allah subxaana wa tacaala waa tahay fanole fari kama qodna waxaan kuu sheegayaa amaba kaa codsanayaa mar kaleeto mudane iyo marwo in aad mataqaanaa magacaaga iyo sidoo kaleeto magaca ablaynkaaga soo qorto si mataqaanaa halkan aynu ugu ogaano magacaaga iyo sidoo kaleeto magaca ablaynkaaga maadaama dadka qaar ama username ama telefoonka ay magaca ku isticmaalayaan telefoonka magaciisa uu soo baxayo zoomka markii ay kasoo hadlayaan qoraalka waad wada mahadsantihiin insha allahu tacaala barnaamijku waxa ugu helinaya asxaab aad u tiro badan wow amazing masha allah maasha allah aad buu u mahadsan yahay liidar jalaqsane oo runtii caawa si aad u qurux badan inoogu daadejinayo maasha allah aad bay u mahadsan yihiin walaalaha dhanka jaadka kusoo qoraya magacooda iyo ablaynkooda ismaaciil maxamed ablaynkiisu waa maxamed jaamac injineerka sulub yuusuf ablaynkiisu waa maxamed macalin cabdiraxmaan jaamac riyaad ablaynkeedu waa abshir maasha allah hambalyada ayaa isqabsatay dhanka jaadka aad baan caawa ugu faraxsannahay una joogna uguna taagannahay hambalyada diamondkii ugu horreeyey ee geeska africa oo aan nasiib u yeelan haddii aan soomaalinahay inuu noqdo hogaamiyaheenna CEO injineer maxamed jaamac farxad gaara ayay noo tahay ka soomaali ahaan ka tiim ahaan iyo sidoo kale
dhammaan qof walba oo geeska Afrika ku nool caawa farxad gaar ah ayuu dareemayaa kambanigan Live Good ee waqti dhow dunida ku soo biiray haddana fursado aan caadi ahayn dadka adduunka jooga siiyey sidoo kalena qabsan doona dunida oo dhan congratulation iyo farxadda ayaan caawa u taagannahay maasha allah dhanka jaadka weli waxaa haystaa hambalyadii aad baan ugu faraxsannahay hambalyada liidarada waxaan ka codsanayaa gacmaha inay soo taagtaan si baanalka loo soo saaro kaliya qofkii liidar ah gacantaa soo taagto insha allah si baanalka aan u soo saarno caawa xiisadeennan waxa ay ku saabsan tahay dabaaldegga iyo weynaynta diamondkii ugu horreeyey ee kasoo baxa geeska Afrika oo aan nasiib u yeelanay haddii aan Soomaali nahay farxad gaara ayay noo tahay caawa inaan dabaaldegga iyo weynaynta halkan isugu nimaano dhammaanteenna aan uga mahad celino dadaalkii iyo waqtigii dheeraa uu geliyey CEO Injineer Maxamed Jaamac runtii in halkan la imaado ma ahayn wax sahla haddana qadarta ilaahay ee dadaalka Injineer Maxamed Jaamac ayaa halkan lagu soo gaaray aad baan uga mahad celinayaa qof walba oo tallaabo ku darsaday safarka dheer runtii wuxuu ahaa safar adag laakiin tallaabooyin badan oo la qaado darteed ilaahay ayaa ku mahadsan inaan halkan soo gaarnay Leydar Jalaqsane ayaan ku wareejinayaa dhanka jaadka inuu noo sii wado waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay liida Dr. Hanad ayuu kaasi ahaa barnaamijkana inala waday insha allahu tacaala barnaamijku caawa waxa weeyaan haddee wanda baaldagayaa East Africa hogaaminaya saan doono inaan u hadla caawa kale waan leeyahay waayahay hambali ayaan mar kale idin leeyahay mahad salaad waryaa la yaqaan war waxa yimid maasha allah mahad salaad soo dhawow maasha allah sidoo kaleeto waxa weeyaan hambaliyada ayuu halkani waxa uga dirayaa ablaynkayaga Engineer Maxamed Jaamac wow congratulations ninkan sidays la yiraahdo ayaa soo qoray soo wada dhawaada insha Allah taala qof walba waa in uu magaciisa iyo sidoo kale ablaynkiisa soo qoro ogow marka aad ablaynkaaga xusayso adiguna waxa weeyaan waxa tahay ablaynkaaga aan iraahdo downlinekaaga ayaa ku xusi doona si lamidana sidelineskaaga ayaa kugu faani doona insha Allah taala soo dhawaada ayaan idin leeyahay caawa looma kala harin faanoolana fari kama qodna insha Allah taala waynu wada gaari doonaa qaybaha dhexe intaynu isla gaarin ka hor sidoo kale dadku aad iyo aad ay waxay ugu hambalyeynayaan Engineer Maxamed Xasan maalasaf ma Engineer Maxamed Jaamac oo maantay soo taabtay Diamond qof walba hankiisa iyo himiladiisa ayaa wada insha Allah taala waxaan rajeynayaa dhamaanteen inuu hanka iyo sidoo kale himiladayadu ayna wadi doonaan bilo Cismaan ayaa kamid ah dadka halkan commentiga ku soo qoraya waxaana ablaynkiisa Axmed Sudaysi hambali ayaan labadiinaba idin leeyahay sidoo kale waxa halkan qoraalada ku soo qoraya waxa kamid ah Deeqa maasha Allah ay ku leedahay tabarakallah Engineer Maxamed Jaamac sidoo kale asxaabta aad iyo aad ayay u tiro badan yihiin isla mar ahaantana qoraalada ay u soo qorayaan soo dhawaada ayaan mar kale idin leeyahay insha Allah taala Engineer Hanad ayaan ku celinayaa si uu mataqaana barnaamijka qaybtiisa u sii wada insha Allah Engineer soo dhawow maasha Allah aad buu mahadsan yahay liidar Jalaqsane oo caawa runtii xiisadda si daran doori ah igula talantaalinaya aad baan uga mahad celinayaa liidar Jalaqsane sidoo kale dhammaan walaalaha xiisadda ka soo qayb gala iyaguna aad baan uga mahad celinaynaa soo dhawaada xiisadeenna ayaan guda geli doonaa runtii dabaaldegeena caawa waa dabaaldeg aad u sarreeya dhammaan Soomaaliya oo dhan iyo East Africa waxaan ugu horreyn soo dhaweynayaa CEO Injineer Maxamed Jaamac oo caawa guushiisa aan halkan u fadhino soo dhawow CEO Injineer Maxamed Jaamac annagoo kaaga mahad celinayna kuguna hambalyeynayna darajada aan noo soo hoysay aad iyo aad baa u mahadsan tahay Dr. Hanad iyo Leader Jalaqsane oo caawa xiisadda ku bilaabayba orahdii hore aan u iraanay qof ka soo marketer halkan Live Good waa la isugu imaanaya haddii uu dhagaha intuu na siiyo barnaamijka Live Good kaliya u dhageysto marka isaga caawa ka dhagawaaje wuxuu yiri waan imid Jalaqsane goorma TV aan horta ku horeysiye goorma soo dhibtay Jalaqsane intaad kor naga daawanaysa adoo kambanigi kala magacaabayn imisaad na daawanaysa oo goorma wallahi
goor qudiya fandhaal kala dhaceen laakiin waqtiga ma tagin wali marba haddaan meesha aan joogahay ay tahay life good dheydka noo sheeg adoo mahadsan caawa waxa weeye waa habeen taariikh la weeye dheydka sheeg waxaad kaloo sheegtaa intayna daawanaysa oo aad leed nimankan way iska hadlayaan oo warka ku soo gaadhay engineer horta aad baa u mahadsan tahay I have remember nin la yiraahdo Dr. Siraji oo Hindiya jooga inay December 10 ahayd ayuu company-gan la soo wadaagay deedna waxaan irorniyo khayr Allah ku siiyay raali ahaw January sidoo kale to gabar Sagal Xuseen la yiraahdo labaduba hadii ay maqlayaan aad baan u salaamayaa saaxiibada qaaliya ayaa ila soo wadaagtay macdalika waan ka diiday ilaa ugu dambeyn maalintii ugu dambeysay haddeer ahayd aan wada hadlaynay dooraahdaasi lahayd aan ma taqaanaa go'aankii ugu dambeeyay qaatay sababta aan u qaatayna ay ahayd barnaamijkan iyo xawaaraha uu ku socdo iyo waqtiga gaaban iyo horumarka laga gaaray marka waxa weeyaan wax walba indhaha ayaa laga arkaa sidaas daraaddeed indhaha ayaan ku arkay barnaamijkan wuuna soconayaa wuuna socdaa insha allahu tacaala waana wada soconaynaa cirka iyo dayaxa dhexdoodaan maraynaa aad iyo aad baa mahadsan tahay leader Jalaqsane si diiran ila soo dhaweeyay insha allah go'aan geesinimada ayuu qaatay xaqiiqatan markii uu nagu soo beeriyay waliba activity fara badanna waa muujiyay durbaba ma sha Allah hambal yaan waayahay mawduuca waan ku soo noqdo caawa waa mahadsantiin horta dhammaantiin commentiga waxa haysta waa arkaa qofkeeda hadlay waa miskiinkii raay maxamed jaac sahal dhammaantiin aad baan idin salaamayaa zoomka caawa saa u soo camirteen iyo hambaliyada iyo dhiirigelinta mobilkayga maanta waxa waa kor waa u qaadi karlaa afkaasu maraya hambaliyada iyo ducada soconaysa waa qaban kar waay mobilkaygii fariimaha haddaan idiin soo jawaabi raalliga ahaada mobilka afkaasu maraya maanta WhatsApp-ki waa qaylinaya wuxuu leeyahay waxan ma robot baa qof caadi ah waxan loo diri maayo waa qaylinaya WhatsApp-ki waa qaylinaya waa idinka mahadnaqayaa dhammaantiin ilaa iyo maanta hambalidii socotay aad iyo aad baa mahadsantihiin dhowr qodob ayaan waxaan rabaa inaan halka yiraahdo marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan u mahadnaqo Allah subhanahu wa ta'ala oo darajadan ii suurta geliyay inaan taabto diamond-ka ah muddo 4 bilood iyo 7 maalmood ah meel ku qoro insha Allah 4 bilood iyo 7 maalmood ayaan ku taabtay company-gan maalinkii aan isqoray isdiiwaan geliyay sida adba mar aad isu qortay aan isu qoray waxay ahayd bishii February 3deedii sanadkan 2023 ayaan isdiiwaan geliyay oo member noqday marka 4 bilood iyo 7 casho ayaan darajada ku taabtay ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan marka ugu horeysa rabaa inaan u mahadnaqo ii suurta geliyay awoodaan siiyay number 1 marka la waxaan rabaa inaan u mahadnaqo walaalihii barnaamijkan isoo gaarsiiyay oo ila soo wadaagay fursadan oo yiri macallin chance baan ku haynaaye ka faa'iideyso xaqiiqatan aad bay u fara badnaayeen waxaan soo qaadanayaa intii ugu horeysay ama intii saameynta igu lahayd insha Allah aan rabo muuqaalkan hadii ku jiraan caawa inay dhageystaan oo u mahadnaqo hadii kalena YouTube-ka kale dib ugu daawan doona insha Allah number 1 waxaan rabaa inaan u mahadnaqo oo aad ila mahadnaqdaan oo fursadan aniga ay soo gaarsiisay Foosiya Tooxow magaceeda shaashada ku soo qora please aad baan rabaa inaan ugu mahadnaqo gabadhaas ay ila soo wadaagtay markii horena teamka Easy Wayland Academy kamid ahayd oo wada shaqayn jirnay ayaa ii soo dirtay Live Good company-gan oo caawa idinkoona ku raaxaysanaysaa time-ka markay gabadhu ii soo dirtay date-kii hadda si sax uma xasuusto laakiin waxaan isleeyahay bishii January ay ahayd qiyaastayda gabadhaas markay ii soo dirtay ama December dhamaadkeedii miyaa adu waa meelaha adu January December meelahaas qiyaasaya markay ii soo dirtay Foosiya Tooxow waxaan ku iri waan ka diiday waxaan barnaamijkani markay ii sharaxday ama concept good maba dhageysanba horta soo inaan dhageysan kama horreynba dhegba ma siinba markii ugu horeysay $2,000 baa la helaya iyo markaan waxa arkay iyo linkigan iyo baan iri kan maaragt waa kii dadka lagu dhici jiray waa scamkii dhageenna wada ogtiino scam iyo tuugo iyo bilay baas bayna dawqisayo dadku ma noolo dad badan ma noolo way sugna dabadna waxaan isiri balaayadii weey kan dabadna Foosiya waan ka diiday waxaan ku iri barnaamijka ma aqbalayo isku day in isku sharaxdo way daday laakiin uma jeedinba waxba ii sheegaysa laakiin ma fahminba waa isdhaafiyay maalma kadib waxa ii soo diray barnaamijkii uu socodiyay ninka la Dr. Hanad ee hadda xiisad aa xiriirinaya Dr. Hanad magaciisa shaqada ku soo qora Dr. Hanad xiisad saa xiriirinaya ku jira aad u jeedaan isaga markii labaad qofkii labaad ii soo diray intaan xasuusto isaga ayuu noqday saa markaan u eegay linkiga waan gartay waxaan iri kan miisankii ahayn lagu soo diray waa isagii Foosiya Tooxow ku dirtay ha Dr. Hanad Freer oo baan u qoray hadduu xasuusto waxaan ku iri Dictore waxaanu ku mashquulaynaa dadka inaan wax barno dhinaca forex-kana dadka waynu bari wixii shaqaysanaya dhinaca IT-ga iyo computer science-kana dadka waa baraynaa
wixii waxbarasho inoo daaban ku linkii lala wareegayo oo dhan doctor inaga daaban ku doctorku markaa qoraal buu soo diray markaa iyo cod kaliya inta markaan u qoray wuxuu yiri haye macallin biir engineer haye waa yaabir su'aal kale ima sii weydiin halkaas aan kala tagnay kadib markaa maxaa bilaabmay asxaab badan oo markaa igu dhow oo aan wada shaqeyno ayaa markaa bilaabay in linkiga ay soo diraan iyo asxaab aanan isgaranayno reer 99 asxaabta dee hawada iska naqaano ciida ka badan baa bilaabay inay soo diraan dabadeedna dhag jalaq ma siin sidii baan isu dhaafinayay oo qof walba ay niyo mar rabaan ku lahaa link iyo waxa mar rabo waxaan ku mashquulayaa inaad dadka wax baro umada Soomaaliyeed wax barasho qofka ha shaqeysto linkiyadan iyo waxan wax arlada uu jira marketing waa wax jira laakiin suuqi waxa ku batay scam marka ma garan kartid kii saxda ah iyo kii fake ah marka waxaan inaga daayay hadal ay ku daalnaa ama marka muddo saa uga dhagaadayga muddo oo laakiin luuqaygu dhowrkii qof ii soo dirayo oo uu haysto oo laakiin aan dhag jala u siin laakiin igu soo noqnoqday lagu soo celcelinayo tira ma adinka igu soo celcelinaya waxa kamid ah sidoo Sharmaaka aan saaxiibnahay muddo dheer oo shaqayn jirnay oo isagu markaa isaguna isdiiwaan galiyay ayaa isna ii soo diray oo yiri oo isagana halkaan ka salaamayo ayaa isaguna ii soo gudbiyay adigu hadal ay ku daalinay barnaamijkaasi iguma socon qof walba waxaan ku yiri raaliga haw maalmaha kamid ah gabadh leeyahay mulki ciise oo joogta Mareykanka shaashada ku soo qor gabadhaas ayaa bahalka igu qancay horta mulki ciise shaashada ku soo qor magaceeda please gabadhaas Mareykan bay joogtaa waxay ugu tir macallin bahalkan barnaamijkan ka faa'iideyso ummadan uga faa'iideey saasi isoo qorto marka lambarkeedu waa USA company-gan xagee laga leeyahay chat-kii ku soo qora USA markaasaan xoogaa soo yito waxaan siri gabadhan bal Mareykanka joogta shirkadda Mareykan ma laga leeyahay iyadoo inta soo taabsiin ma soo aragtay company-gi ila dadka kale soo diray wadamo kale kala joogeen moogta qof walba Mareykan baa laga xogta waa igu soo dhacaysay dul bay igu soo dhacaysay dabadna markaasaan isir gabadhaasaan iri warbal iyada Mareykanka joogtay waxaan u qoray gabadha waxaan ku maxay ilaahay ku ogaayay baan ku barnaamijkan Mareykan baa laga leeyahay waa arkay wax jira waxni maya productyadan iibinayaan ma aragtay adigu ma ka dalbatay ma la iibsaday wixii dadkii hore ma wareegay iyadan weydiiyay su'aalahaas haday ku jirto aad baan u salaamaya hadii kala muuqaalka ta loo gaari doona hadii ilaahay qadaro waxay ku tiri macallin company-gan waan galay waan kamid ahay shirkaddan Mareykan bay ku taalaa saas ay igu la hadashay faytamiinadani wax leeynaysa waan ba ka soo iibsaday gurigayga taala waxaan ku iri adigu ma cunta way marka qofku wax market gareynay dadka qaar baa been market gareynaya waxaysan iyagu cunin ehelkooda ku tijaayay baa marka qaar market gareynaya marka waxaan ku iri ma cunta waan waliba dhaariyay waxay u tiri wallahi waa cuna video way soo dirtay dawada guriga taala markaasaan horta barnaamijka oo qalbigayga qof ku yiri markaasaan ir hadaba hadeer baaritaan ku sameey hadaba maalinkaas su'aal baan iyada weydiiyay waxaan ku iri dad badan baa halka ii soo dirayay qofkii ugu horreeyay ii soo diray barnaamijka gabadha Fawziyato waxay ahayd maskuutiin baatiin haday Fawziyato leader ku tahay adiga linka waa ka qaadanaya baan ku iri maadaama dhaw linkeeda tahay maadaama Fawziyo ay qofkii ugu horreeyay ii soo dirtay tahay iyada ay ma taqaana nasiib daro waxay u tirmay gabadhaas ma naqaano teamkeedana ma yihi markaasaan ku iri hadaba iga raalahow gabadhaas ay keentay gabadhaasaan ka qaadanaya linkiga adiguna aad iyo aad u mahadsan tahay sidaan gabadha ugu mahadnaqay maalinkaasaan horta barnaamijkiis qoray Fawziyana Dr. Hanad linkiga oo haystay Fawziyato wuxuu ka qaatay Fawziya Dr. Hanad baan la hadlay dabadna Dr. Hanad baan linkiga asaa kaga qaatay waana meesha magac ka muuqanaya ablan Dr. Hanad saasaan linkigiisa ku qaatay horta history-ga waa la fahmay Soomaa marka history-gaas waxaan ila wadaagaya walaalo badan oo laga muuqaalkan dib ka daawadaan ba hadda caqabadaas haystaa taa anba haystaayo barnaamijka ka baqay marka la yaab malaha qofka haduu ka baqo iyo haduu diido iyo haduu ku dhowr waxan igala tag hala yaabin waayo dadku waxa ay dhaawac badan waa gaareen qaarna barnaamijyo kale ay haystaan marka si ku aaminaan ba adag wixii si lagu aaminaa adag marka horta saasaan teamkaas oo dhan isoo gaarsiiyay ugu mahadnaqaya waxaan kaloo marka mahadnaqa ka tagmaaye aan mahadnaqa raacinaya teamkii iyaga soo gaarsiiyay Fawziyato waxa lugta ka sareyso dhan oo ay kamid tahay gabadha hodan leeyahay hodan queen oo aan salaamayo gabadha Fawziya Awad oo joogta wadanka Canada oo yana salaam liirad weyna Dr. Siraaje oo isaguna in aad iyo aad u dadaal badan oo iyaga ka wasareeya iyo ninkii barnaamijka Soomaaliba qofkii ugu horreeyay qoray Cabdirasaaq Xaashi intaba si gaar ah ayaan iyagana u salaamaya oo hadaysan iyagu in soo gaarsiin lahayn de inamaba soo gaareen Soomaa haddaan qof soo gaarsiin lahayn inama soo gaareen marka dhamaantood oo mahadnaqaya fursadan ay ila soo wadaageen aniguna aan ka faa'iideystay ummadan aan uga faa'iideeyay وهجاك انت waxaan ku darayaa way qodobka mahadnaqa marka hadii aan ka tago oo aan qaybtaas ka baxo inta barnaamijkana soo gaarsay
waxaan rabaa inaan iyagana u mahadnaqo garbahayga liidharada ila shaqaynayay ee hawshan juhdiga iyo dadaalka iyo waqtiga ku bixiyay ee aniga i rumaystay markaan u keenay barnaamijka aqbalay ee sida fagax saa u soo wada galay baan u mahadnaqayaa dhammaantood anoon kala saarayn inta platinumka gaartay inta gooliga gaadhay kuwa silfarada gaadhay kuwa bronziga gaadhay iyo kuwa maanta isqorayba dhammaantood mid walba halkiisa ayaan ku salaamayaa iyo magaciisa iyo titlekiisa haddii aan garbaha aan heli lahayna dee maba aan dhaqaaqaynba iyaga ayaan odhan karaa ayaa riyadan maanta suurto geliyey oo markii barnaamijkan aan gelayey aan daraaseeyey aan isqoray maalinkaan ii sheegay barnaamijkan wax ka sahlan maan arag intaan barnaamijka ka shaqaynaysaan mar walba ii sheegay waxaan qorsheeyey diamondka inaan ku taaban karayo 3 bilood baan qorsheeyey waa markaan galay baan balaanka samaystay aarkan 3 months ku taaban karaysa sida aan ku gaari karaysaa markaa maxay tahay in aan team dhiso team work saa darteed dhammaan leaderskaas oo dhan dhammaantood aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo su'aal baa maskaxayda ka guuxaysa oranaysa sidee ku gaadhay darajadan diamond yani maxaa kuu sahlay maskaxayda ma ku jirtaas kuu sheegaa sirta haye dhagahagaysi waaya yaysan ku dhaafin dhagahagaysi number 1 waxaan ku talin lahaa horta qof kastoo hammi leh oo riya leh in uu number 1 horta uu iska saxo isaga iyo xariga ilaahay subxaanahu wa ta'aala kala dhaxeeya number 1 horta xarigaa sax bidix iyo midig ha eegin horta xarigaa sax salaada sidee ku tahay quraanka sidee ku tahay waxyaabaha wanaagsan sidee ku tahay horta iska sax taas number 1 number 2 iska sax xariga adiga iyo waalidka idinka dhaxeeya waalidka haday dhinteena Allahu naxariiso xarig baa idinka dhaxeeyo waxay xaq ugu leeyihiin inaad u duceysid bay xaq ugu leeyihiin xarigaas go'ay maayo haday nool yihiin waxay xaq ugu leeyihiin inaad asxaan samayso oo aad garab istaagto sidii ay ku garab istaagnaayeen markii aad yarayd saa darteed xarigaasna sax alxamdulillahi rabbil caalamiin labadaas xarigba way saxayeen labadaasba way saxayeen aabahay ducada u raacay Allah subhanahu wa ta'ala inuu jannada firdawsa ku irsaaqo waa geeriyooday xarigiisu way saxan yahay hooyana waa noo caafimaadka Ilaahay u siyaadiyo yana xarigeedu way saxan yahay labadaas haday ku saxan yihiin waxa kale dhan way hagaagayaan waxaan ku darayaa ku dadaal oo maskaxdaada geli in aad tiraahdid aniga ha odhan waxa rabta way imaanayaan ku dadaal waxaad samaysaa dadka walaalahaaga Soomaaliyeed caawi waxaad ku caawin kartaa caawi haddii hadda barnaamijkan ay kuu soo galeen oo tiimkaaga ka mid yihiin waqti ku bixi inay guuleystaan kambaniga Live Good laba wado ayaa darajooyinka lagu gaadhaa wada waxa weeye inaad wax alaalo waxaad heshid isku xidhid oo qof kasta qortay sharaataka door commission adiga ku soo dhaco waad ku gaari kartaa darajada diamond wadana waxa weeyaan inaad 3 leader soo saartid saddexdaasna ku dhiirigelisid inay 3 kala soo saaraan saddexdaasna ku inay 3 soo saaraan ku dhiirigelisid dabadna aanu markaan banaanka qaatay waxaan go'aansaday waan awoodi karay inaan diamondka ku raadiyo YouTube baan leeyahay caan ah oo almost 10 sano ka badan jiray arday badan oo kumanaana ayaa igu xidhan oo aan soo bilaabay inaan dadka wax baro 2010kii cilmiga IT-ga YouTube Twitter almost 90,000 ka badan ku xidhan Facebook-da aan leeyahay page-kayga 200,000 oo qof baa ku xidhan way awoodi karayay inaan target ka dhigto diamondka inaan aadayo inaan waxaba toos ugu xidho oo linkigayga kaliya aan socodsiiyo laakiin qaacida waan cancel gareeyay waxaan qaatay qaacida ah waxaad guuleysanaysaa maxamedow marka aad walaalahaaga Soomaaliyeed ay guuleysan bad guuleysanaysaa $10 ha eegin min Allah kaaga soo dhacay oo soconaysaa helaysa laakiin ku dadaal soo saar diamond baartaa Soomaha 3 qof oo platinum soo saar markaad 3 qof oo platinum aad soo saartid diamondka wuu imaanaya 3 platinumka ku dhiirigeli inay 3 gool iyo mid walba uu soo saaro goolyada ku tabantaabi inay silfar soo saaraan silfarada ku tabantaabi inay bronze soo saaraan bronze ku tabantaabi inuu matrix ka caawiyo taas qaacidaasan qaatay waana taata amaanta guusha gaaray
waxaad markhaati ka tihiin diamondkayga inaan loo hambaliyeen ilaa aan soo saaray 3 platinum number 1 samsam axmed shashada kusoo qor magaceeda platinumka koowaad aan soo saaray samsam axmed ayuha platinumka labaad aan soo saaray leader xalwa cali ayuha number 2 platinumkii saddexaad aan soo saaray wuxuu ahaa leader cabdiraxmaan jaamac oo jooga Mozambique ayuha saddexdaas cabdiraxmaan jaamac aan soo saaray saddexdaas markaan soo saaray baan diamondkan iyagu maxay soo saareen mid walba in ka badan 4 gold buu soo saaray oo salaxan bronze ciida ka badan silver ciida ka badan baa soo baxay taas wiitaan guusha maanta sirta ka dambaysa guushan aan ku leeyahay maanta iyaguna ila dabaaldegayaan saaka markaan diamondka lagu hambaliyay iyaga waxaan kala hadlayay sidii ay diamond ku noqon lahaayeen baan mid walba waqti la qaad diamond see aadna ku noqon hambaliyada taada ka misane taadi meed aan kala shaqeynay sida ay tahay culays kuma sii dayn inay platinum noqdaan kulma sii dayn ilaa xagga hoose aan kala shaqeynay ilaa sagxadda hoose qofka caawa isqoro tiimkooda ah baan ka warhaynay marka tiimkaas oo hadday guuleystaan aadna u guuleysanaysaa waxaan ku soo gabagabeynayaa muuqaalkan caawa oo caawa muuqaal xiisa leh record aan East Africa baan ku xiray jabiyay qof walba codkii haddaad maqlisid waxaad target ka dhigtaa qofka walaalkaa inaad caawisid markaad caawisid adiguna waa soo bixi min Ilaahay baad ka soo baxaysaa wixii iska soconaya dalkiisaaba guul baan idin rajaynayaa kalmadeedu waxa weeye mar walba waa waxbaro oo shaqayso waar meyside war ka haro ayaa hal ku dhigaya waxa weeye adduunyadan maalmeer baan joogaynaa war ummadaada wax uga tag insha Allah si aynu ummadeenu u wada guuleysato hadii la haydmo back to you dib baan kugu soo celiyay Dr. Hanad iyo leader Jalaksane waa maasantiin walaalahayga maanta dhigay hambalyeynayna ii duceyneen aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa thank you guuleysta waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa engineer Maxamed Jaamac waxa waaye role model masha Allah kulay waxaan kugu tilmaamo ma garanayo waxaan ku leeyahay engineer hambalyo horay u soco ayaan ku leeyahay sidoo kale to asxaabta sharafta leh waxaan halkan mar kale to idin kugu sheegayaa in mataqaana barnaamijku uu horay noogu sii socon doono magacaaga iyo sidoo kale to upline-kaaga mar walba upline-kaaga waa inaad ku faantaa xitaa haddii uu yani uusan halkan joogin oo meel kale joogo waa in mar walba upline-kaagu uu ahaadaa madaxaaga downline-iskaaga sidoo kale to ay sida ay ahaadaan sida uu injineerku sheegayay kuwa aad tabantaabinaysa isla mar ahaantaasna aad garab qabanayso halka dadka sidelines-kaaga ah maadaama aadna aadan waxba ka helin iyaguna ayna waxba ka helinina aad sidelines tihiin aad waxa kaliya aad kala mudan tihiin ay tahay inaad isgacan qabsataan isla mar ahaantaasna waxa kaliya aad ku guuleysan kartaan ay tahay in mataqaana aad guusha wada maamisaan soo dhawaada ayaa siiyo Hanad ayaanan ma soo dhawow Dr. Hanad Dr. Hanad ma maqlayaa waayahay aad iyo aad Jalaksane aad baad u mahadsan tahay si fiican baan ku maqlaa aad baan kaaga mahad celinay runtii sidoo kale waxaan u hambalyeynaa CEO engineer Maxamed Jaamac oo caawa aan u taaganahay hambalyada uu soo hoyo ummadda Soomaaliyeed iyo sidoo kale reer East Africa waxaan soo dhaweynayaa markan microphone-kana aan siinayaa leader Dr. Siraaji Xasan Dr. Siraaji soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور هانad ma maqashaa soo dhawow mudane waa ku maqlaa Dr. Siraaji si fiican aan ugu maqlaa codkaaga waa clear ما شاء الله ما شاء الله السلام يا دكتور هانad waa salaamaya Jalaksane baraada waa ku salaamaya ما شاء الله soo dhawow aad baan ka mahadnaqayaa codkayga waa gogo'aya Soomaa ama caadi maqashay Soomaa mar uu gogo'aya engineer kusoo Jalaksane maqashaa kusoo waa maqalnaa inkastoo uu gogo'ayo hello doctor hello doctor
دكتور سراجي waxaan filayaa codka inuu ka go'ay siraaji waan ka xunnahay waxaan soo dhaweynayaa leader xalwa cali platinum leader xalwa cali انجينير سعيد اريد هذا ظهر ان شاء الله اسد عنده تهانته ولا سهل بقى. And كنت guusha adaa la yiraahdaa soo dhawaada saaxiibayaal marka la inaad wada maqlaysaan ayaan rajeynayaa insha Allah taala mala maqlaa horta والله مغلاها waayahay insha Allah taala waxaynu halkan caawa u joognaa isla maraantana meetingkan ama zoomkan aanu ugu jirnaa sida aynu u soo dhaweyn lahayn guusha aynu soo taabanay East Africa طبعا waxaan isleeyahay injineerku keligii maanu lahayn caawa guushaane waynu wada lahayn injineer marka la soo dhawaayaan ku leeyahay insha Allah xalwo waa ku salaamayaa adiguna walaale marwa xalwa waan ilmaamay ilmaan iyo hafyaba hadal kuma jiraan baa leeyahay waxay kamid ahayd dadkii barnaamijkan markii leela soo wadaagay soo gaarsiiyay ayay kamid ahayd iyada laftirkeedu live good way ugu soo noqnoqotay waxaan maqli jiray soo noqotay banaq baa u daay laakiin caawa ayaa waxaan aaminsanahay waxaan intaas ka meermeeraysanayay inay ahayd wax ma taqaanaa caawa aan ka shalaayay laakiinse shalaytadu waxa weeyaan ninka raga u fiicna soo dhawaada ayaan idin leeyahay insha Allah taala saaxiibayaal شلحسن الغشاء aad iyo toos mudane ميكروفون ولا اسمه الساعه waa farxadda ونيو رالله هذا حقا كونكشن كاسكحن كونكشن كاسكحن والسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مدني دمانتم السلام يا دمان وحنا لي همبليو إنجنير محمد جامع وحنا لي ما شاء الله همبليو دمان ليدر هذا ودن ميل بيكل جوجان أنت نمقلسي أنت نجمع جنب وحنا لي هاي إلهي سبحانه وتعالى ميل بيجت الله يكون حفيده كل بديرت التاريخ أيود جاي إنجنير محمد جامع تاريخ فنتي لما إلا وانا وهذا حتى فيسبوك ده إيميل كسته ولا هذا هاي أيود جاي وقف جوري إيست أفريقيا كسب بحا النقطة درجات من جاره ما شاء الله runtii wuxuu noo furay albaab runtii aan ku dayasho leh oo haddii dee ilaahay mataqaanaa subxaana watacaala arrintaasi nala garab galo aan ku dayan karno oo arrinkaas u taabtay qof walba oo kan maanta soo galay iyo kan hore ugu jiraba uu tiigsanayo inuu halkaa gaaro systemkana waa system runtii adduunka oo dhan maanta haddii meel walba lagu soo tartamayo sidii mataqaanaa loo gaari lahaa qof walba goolkiisa gaari lahaa waxaad moodaa محمد جامع خير الله سيو وحو بالله برامج كني مركو بالله أنا جو حنشوف جول اللي بتاعنا مركو حنشوف برامج بالله سداسة هنا بلي بربو كل نقضي برايتين وقف جوهري سوماليا وسيو أفكس كيرادو سومالي إن نور شيء ما أنت أوجاد محمد جامع يا كسب حي وبرايتين كي شناد أيوها كمبنيجا مركب محمد جامع برايتين كي شناد بوها كمبنيجا كسب بحا كسب بحي إيست أفريقيا gacan baa ii taagan دكتور سراج gacan baa ii taagan halayga warhayo qadkaa ka hadlaysan دكتور سراج doctor hanad halayga warhayo siciid leader سعيد إريك ayaan soo dhaweynaya leader سعيد oo soo dhaw leader سعيد إريك ما شاء الله ma lay maqlayaa codkaagana waa hooseeya leader سعيد ma lay maqlayaa hadda waa lagu maqlaa ha ku soo ما شاء الله ما caawa mikrofoonku waa kala boob weeye ma garata marka in la qayliyo oo la yiraahdo caawa yaan layga tegin waa munaasabada keeni raalaha la ahaado ma garata أساس leader سعيد
ما شاء الله ما شاء الله waxaan rabaa wax yar inaan ka sheego life guur sidaan injineerka maartay teamkiisa uga mid noqday saan isku helay aniga 28 February ayaan maartay ku biiray life guur qof ajnabi ah ayaa linkiga ka qaatay maalintii saa markaan u fiiriyay aan akhriyay isla minidkii baan go'aan gaaray inaan maartay ma garanaysaa aan ka mid noqdo waayo anigu khibrad waxaan u leeyahay kamaniyaasha maartay heerbalka iyo waxaan oo dhan baan ku soo jiray kambani la mida inuusan jirin baa isla minidkii gaaray isla minidkii baana isqoray marka February 28keedii ahayd waa soo waday ilaahay amarkiis markii February aan ku dhigay December 28 ayaan ku biiray December January haddii la ku reeyay February markii la marayo baa maalmihii lacagta la bixinay $10 la bixinayay baa si ay iga noqotay intaan kaarka wax la raadinayay baa akoonkayga iga dhacay maarta akoonkayga dhacay ma garan oo hawadaba ka baxay markaas ayaan injineerka waxaan arkay maartay linkigii maartay xayeysiinaya injineer ma saas ahaa war waxaan hadda waa gelayaa baan injineer mar anoo adiga ku arkaya oo ablayn ku arkaya ablayn kala qaadan maayo ma garato marka sidaas ayuu maartay aan injineerka maartay ugu soo biiray teamkiisa injineerkana maartay anigu waxaan ku bartay barnaamijkii IBC ayaan ku bartay IBC wuxuu ahaa barnaamijyada lacagta ka helay kan ugu wanaagsan buu ahaa barigaas ayaan injineerka bartay barigaas ka bacdina injineerka maartay inaan maartay u noqdo downline iyo waxaan maartay isku day jiray inaan ka noqdo maartay anigu aan upline u noqdo programkan arkay waa kula ordi jiray waxaan oran jiray mar kaliya injineer maxamed jaamac maartay ha ku noqdo downline ad maartay suxulka ka leeftida mararka qaarkood way ii hirgashay ma garatay way ii hirgashay ma sha Allah okay injineerka maartay guusha uu gaaray ma aha wax maartay dheel ku timid iyo maartay nasiib ilaahay baa qadaray laakiin hawl bay ku timid waxaad ku garanaysaa qof kastoo inaga kamida waa ogtiin idinka iiga maraga markii aad hawl uga baahatay injineerka isla inay minute inuu kugu jawaabayo ma garanaysaa muddo gaaban inuu kugu jawaabayo teamkiisa caawa isagoo ah 2700 gogo imagine in maaragtay qof kastoo inaga naga mid ah oo injineerka maaragtay uga baahda saacada gudahood inuu maaragtay jawaab uga helayo marka taasina waxa waa awood xad dhaaf ah weeye dad baa inta maaragtay laba qof qoran labadii qof maaragtay maare u heli karin oo ka warqabin oo u jawaabi karin marka guushaan waxay ku timid shaqay ku timid injineerka waxaan kale oo maaragtay ku amaanaya maaragtay ilaahay hiba u siiyey wax la yiraahdo istiraatiijiyada uu dejiyey oo IBC uu noo dejiyey waa ku guuleysanay tii uu maartay life good noo dejiyay waa ku guuleysanay nidaamkaas oo saddex qof la dhisaayo aniga hadda idin la hadlayo anigu gold baan ahay waxaan u dagaalamayaa maartay platinum saddex qof baa iyo qoran saddex qof way maartay dadka directiga marka injineerku aad iyo aad ayuu maartay ugu maartay maxad celinaya fishinkiisa kale injineerka wuxuu yiri markaan bilaabaynay wuxuu yiri war anigu waxaan rabaa inaan diamond ku nasto u fiirsada waxa ka sokeeya iyo midna lama arko diamond yani wuxuu arkay injineerka markii aad maartay diamond noqoto total sales of the company 2% baa laga soo qaadaya matalan 6 milyan oo dollar haddii company-gu gado oo 2% laga soo qaado waa 120,000 oo dollar wey marka waayo dhaweyd wuxuu marayay 12 diamond u qaybe waa $10,000 injineerku maalin uu wuxuu wariyay anigu may maqlaysaa anigu inta kale iyo dhaga kale iyo midna malihi I want to raise on diamond marka kulligeena hadafkeenu waa inuu inta ahaada diamond haddaad gaarto ma sha Allah maaragtay waxa way culaysku waa ka degay culayska ka degay waxa weeye macnaha xagga maaliyadda iyo saas oo kale laakiin culayska dad caawintu ma aha inuu dhamaanayo magar haddaynu milyan helo iyo haddaan malaayiin helo ma garanaysaa ma aha culayska inuu dhamaado injineerka waxaan kaloo dareemay diamondkaas si uu gaaro xoog iyo xoolo iyo wax allaale wuxuu hayay wuxuu hagranay lama arko ma garanaysaa mar qofka lacagta ka baxsho mar qofka tababaro asagoo u taagan hadalkii waa badiyay intaas ayaan oran lahaa dhammaanteena maartay abaha injineerku inoo jeexay aan qaadno qof allow qofkii lacag haysto lacagtaada maartay nin baa wuxuu qaataa $20,000 dabakaayo nin baa maartay ku fura cafeteria $20,000 buu ku fura
kabacdi 3 wiil kabacdi qof soo gal markuu waayo waa xiraa maxaa kuu diiday inaad maartay 3,000 ama 2,000 ama sidii hadda habeenkii rag la sheegayay aad maartay dadka kontonka ka bixisa haddaad hayso qof liidara oo ma garanaysaa oo maarta fagax ah oo aan lacag haysa haddaa aragtid asaga adigu lacag haysato ka bixi meel fiican ku maarta ku habee 3daadii khad kala habee dhaqsaad ayaad goolkaaga u gaaraysaa aad iyo aad baan idiin salaamayaa waa ka baxay waa tahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay mudane ereg oo nooga soo sheekeeyey sheeko cajiib ah wuxuu yidhi injineerku halkaasaan ku nasanaya injineer halkaas aynoo ballanaya insha allah aad iyo aad u mahadsantiin insha allahu tacaala asxaabta qiimaha iyo qadarinta mudan ayaan sidoo kaleeto soo wada dhaweynaynaa aan soo dhaweeyo bal markaan hadduu ilaah yidhaahdo mudane axmed obsiye soo dhowo mudane مالي مغلا aad iyo toos أول أبسية سودو والغو مقلا وعليكم السلام إن شاء الله والله مغلا سوما دفع عن بالغو مقلا أبوان أبسية سودو أذيقي ما صدادي سلام يا دكتور حناد وحن سلام يا داديها برامجك ليدر جلسن سيد 10 بود ما كدغي سرنو عندي وان سلام يا waxaan hambaliyada caawa yani siinayaa injineerkayga macalinkayga dhinaca aytiga ah iyo leif goodba injineer maxamed jaac sahal waxaan leeyahay hambaliyo dheemanka aad gaadhay insha allah anoo ku xusi doonaa afrey kulliba aan qolalka soo dhigay baan insha allah idinla wadaagayaa maadaama waqti badan lagu jiray war kala geli maayo marka maansada waxaan u bixiyey diamond waxaan leeyahay maansadan dhankaygay dhuuxuu ka timidoo waa dhaxal awoogo aabihii dhaliba waagiyo dhallaannimo anoo dharabta aallaba dhabti ii laqimayo dhegta iigu ridayo ii raacshay dhuuxe dheel laguma tiriyo dhaya looma heesee aan dhaho midkaan rabay hagihii dhulkeennow injineerkan sheegaya injineer maxamed jaac xasaan hagihii dhulkeennow dhamma iyo waxaa tahay dhalinka kii dhisaayee duufaanka dhacyiiyo dhaxamaha u jiidhee dhinacay u jiiftiyo dhanka ay ka liicdaa kii dhidab u taagee dheeliga u diido halii dhiiran baa tahay dhacdadii iyo bushaarada dhambaalkiina soo gaadh inaad dheeman gaadhee horey u dhaaf koroonkii waa dheeman koroon iyo kii kale de horey u dhaaf koroonkiyo waxa hadhay dhammaantood darajooyinkii hore o dhan injineer dhaaf insha allah anaguna dhammaantayo dhalin iyo duqay iyo dhadig iyo laboodkuba farxaddan dharaartan kuu dhalatay adigay ustaadku dhammaantood iyana dheefsanayaan beej kastoo la dhowraba sacab dhiirigelin iyo hambaliyaa la soo dhigay dhawaan cadda obsiiyana maansadan ayuu dhigay maasha allah ereyadaas oo mar dhow aan isku aadiyey ayaan hambaliyada injineerka macalinkayga gaarka aytiga aan kaga qayb qaadanayey run ahaantiina isaga soo gaariyay barnaamijkan isaga soo gaarsiiyey ila wadaagay aad baad u mahadsan tahay intaas ayaan kaga baxayaa doctor Ahmed insha Allah abwaan Axmed Obsiye runtii maasada quruxda badan aad baan uga mahad celinaynaa runtii Axmed Obsiye maasadan waxa uu ku diyaariyay wax ka yar 15 daqiiqo intaan xiisada soo galin horteed abwaan Obsiye insha Allah taxa kale badan ayaan ka rajeyn doonaa hadii Ilaahay yiraahdo caawa maasha Allah panelku waxa sidoo kale walaalaha gacmaha u wada taagan yihiin fursadooda iyo jaaniskooda ayaan wada siin doonaa leader xalwa haddii diyaar tahay insha Allah microfonka soo dhow leader xalwa cali aad iyo aad u mahadsan tahay Dr. Hanad mali maqlaa si fiican baa lagu maqlaa ku soo maasha Allah aad baad u mahadsantiin dhammaantiinba waxaan ku bilaabayaa waxay ahayd galab casir ah qorraxda ay sii dhacayso isla markaana waxay ahayd waqti dhinaceena ah winter bisha 2 ee February waxay ahayd 4 waxaa fariin ii soo diray injineer Maxamed Jaamac isagoo markaa ii soo diray link waliba video wato linkigaasi oo sharaxaad yar oo kooban ka bixinayo company Live Good maan sii raacin runtii kadib cod ayuu ii soo diray waxa uu yiri xalwo
dee waxaa tahay qof marketer ah barnaamijkaadii ay raadinaysay ayaan kuu hayaa waa adigii diiday forex iyo barnaamijyada kale soo dhawow fariin yar ayuu iisoo raaciyey fariin baan u diray waxaan ku yidhi engineer naga daade IC capital iyo maxay ahaaday barnaamijyadii kale ee CD on scale iyo applicationadii iyo cryptocurrency all waa ka caajisnay naga daysid markaas wuxuu yidhi may xalwo exactly waxaa jecladaan kuu wadaa barnaamijkan wax yar soo daawo goor galaba ee heeda howlahayga iska sii wata habeenkii waan seexday subaxi dambe isoo wacay shaqan ku jiray galabtii baan haddana ismaqalnay wuxuu igu yiri zoom soo galay zoom baan soo galay barnaamijkii sharaxaad yar isiiyey waan register gareeyey wixii intaa ka dambeeyay waa isla jaan qaaday maasha allah waa halka uu iga soo bilowday barnaamijka Live Good maanta waxaan u hambaleynayaa markaa aan mar labaad uga mahad celinayaa maalintaasi kolley ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa faray oo ii soo diray fursadaasna usoo dhiibay sidii galeerkii injineer maxamed jaamac si aan anigana uga faa'iideysta marka ugu horeysa allah subxaanahu wa tacaala qaadirka ah ee kariimka ayaan u mahad celinaya fursadaasi iigu soo dhiibay faclan fursadda hal mar ayay albaabkaada soo garaacdaa markaasaa tiraahdaa war heedha iga tagtala ku qaadatay waa kii tuugada wadatay waa kii istaamka wadatay markaasi kaa tagtaa fursaddii haddii aadan ka faa'iideysanin kuma soo laabato ganacsigana sidiisaba waa fursado albaabkaada soo garaacay aad ka faa'iideysato iyo nasiibka oo kulmo dabcan galabtaasi nasiibka ayaa kulmay inaan barnaamijka ka faa'iideysto runtii injineer maxamed jaamac ayaan sidoo kale ilaahay ka suku u mahad celinaya maadaama barnaamijkan isagoo isoo gaarsiiyey inaan ka faa'iideysto oo maanta aan uga faa'iideeyey kumanaan dad ahna isaga ayaa u sabab ahaa sidaa darteed injineer waa mahadsantahay marka hore marka labaad waxqabadkaadii iyo dadaalkaadii iyo kartidaadii iyo hogaaminimadaadii iyo heelanaantaadii aad garabka nagu siisay maanta iyo maalintii aan isbaranay ma aha barnaamijkan oo keli barnaamijyo badan ayaa isla soo shaqeynay waxaan ku leeyahay thank you waad mahadsan tahay runtii waxaa tahay qof leader ah ee lagu dayda dhinac kastaba markay noqoto dadka guusha gaare ee horumarka gaare ee dunidan horumarka gaare waxay samaystaan dad ay ku daysadaan ee role model ah ama inay helaan qof coach ah mentor ah inay helaan waxaad noo noqotay role model markaan soo galnay barnaamijka Live Good dhammaanteenaba sidoo kale xitaa dadkii kaa soo horreeyay markaan ku daro waxaad noo noqotay role model waxaad noo noqotay mentor waxaad noo noqotay coach ilaahay ha ku xifdiyo hambalyadaada wax badan kagama qayb qaadanaya dad badan ayaa caawa hadlay waxaan leeyahay dhammaantiinana tiimamka qeybaha kala duwan ee caawa barnaamijka kasoo qayb qaatay waad mahadsantihiin waxaan si gaara u xasuustay caawa leader jalaqsane barnaamijka markuu daadihinayay barnaamijyada idaacadaha saxufiyiinta way is yaqaanaan ee kala duwanaa aan soo daadihin jirnay aan dib u xasuustay caawa waxaan ku yidhi ma idaacaddii baan dhex fadhiyaa ma stuudiyihii baan joogaa maasha allah taasina waa xasuus ii gaar ah jalaqsane aad baan kuu salaamayaa waan kuu hambaleynayaa waan ku soo dhaweynayaa waxaan ku leeyahay waxaa lagu sharaxay ee lagu fidiyey maasha allah gobol aad u ballaaran soo dhawow leaderska kale dhammaantood waa salaamayaa injineer maxamed jaamac mar kale waxaan ku leeyahay keligaa maad imaanay halkaasi waxaa la yiri ninka ragga ee guuleysta gabar baa ka dambaysa waxaan u hambaleynayaa gabdhaha ku garab istaagay oo ay ugu horeysa xaaskaada hooyada iyo walaalaha iyo dhammaan gabdhaha kula shaqeynayay maadaama aan kali gabadha kale caawa halkan ka hadashay ahay gabdhahaasana iyo mahad celinaa waay garbahaada gabdha ayaa taagan ilaah khayr ha siiyo hadday noqon lahayd xaaskaada hadday noqon lahayd saaxiibadaada hadday noqon lahayd hooyada iyo dhammaan gabdhaha kula shaqeyna si gaar ah ayaan ugu mahad celinaa maxaa yeele halka inaad soo gaartay ilaahay ka sokow iyaga ayaa sabab u ahaa oo garab ku siiyey welibana mararka qaar qofka marka uu keligiis gudihiisa isla sheekaysto oo xaaladda ay ka xumaato qofka ugu dhow ee garab istaaga waa gabadhaada aan idhaahda xaaskaada marka waa u hambaleynayaa sidoo kale aad iyo aad dhammaantiinba guud ahaanba qof walba meeqaanka uu caawa ku jooga ayaan sidoo kale ugu hambalyeynaa waxaan leeyahay dadaal ayaa wax kasta inooga xiran yihiin maalintii aan soo bilaabay barnaamijka la ii keeno waxaan kasoo bilaabay unrank maantana waxaan ahay platinum waxaana mar dhow ku socda haddii laha dheeman qof walba annaga naga mid ahna sidoo kale hadduu hadaf samaysto ee ficil ku dara ee joogteeyo ee spiritualka sida maxamed jaamac uu ka dhawaajiyey uu noqdo qof ilaahay ku xiran wax kasta way u fududaanayaan marka aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waad in hambalyeynayaa daadihiyaasha barnaamijka haddaan usoo noqdo dr hanad ilaah subxaana watacaala ha ku xifdiyo codkaada caqligaada
iyo miisaaniyadaada ilaahay kuu barakeeyo iyo sidoo kale liidar jalaqsane isagana waxaan ku leeyahay ilaaha idin xifdiyo soo dhawaada dhammaantiinba inta liidaris oo banaanka ila saarano waan salaamayaa salaam sharaf ayaan u gudbinayaa mar kale waxaan leeyahay injineer maxamed jaamac guuleyso waxaa inoo ballan ah countdown aad iyo aad u mahadsantihiin waa tahay aad iyo aad ayay u mahadsan tahay marwo xalwa cali mahadsanid ayaan mar kale ku leeyahay insha allahu tacaala halkan caawa haddee waxaan idhaaha ma garanaye waxaan idhaaha ma garanaye waxaan ku leeyahay injineer maxamed jaamac had ka hor baa mid heese moogtahay markaas yiri ku taagtaagso nacabkaaga da heesana dadkaa naga kala carabaya waayahay soo dhawaada mar kale fiid wanaagsan ayaan idin leeyahay insha allahu tacaala inta ay fiidka u tahay caways wanaagsan inta mataqaanaa ay fiid horaadka u tahayna sidoo kaleeto waxaan leeyahay amaba dharaarta ay u tahayna maalin wanaagsan mrs xalwa aad ayaan mar kale kugu mahad celinayaa insha allahu tacaala waxaan soo dhaweynayaa liida maxamed mooge oy gacanta u taagan tahay insha allahu tacaala si uu halkan inooga yidhaahdo kelmadiisa insha allahu tacaala ma hilmaami doono akhyaarta sharafta leh ee halkan inala jooga barnaamijkuna caawa madaxana furan waa madaxana furan hedha hadalka ma sii wadi kare soo dhawow mudane liida maxamed mooge السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعيد السلام عيد أمان مدحضة مامولكا يبقى تشرفت أو كنا جلسات أو هي جروب هوشان وضع مركا كواتي مركا لواتي مركا سدحات وحنا لا يحمبليو معلم كيا انجينير كيا محمد جامع عاو أو كلام تغراه وحنا نيجري درميدي أورا ولياب لا هايتي انجينير محمد جامع دايما ينقوري ونون كده ليسا أقدر نلقاوه انجينير كهول لنا انجينير قوليسوي انجينير قوليسوي دكتور حناد كبلاو انت كهيك يون صفكا كجرام أنينا انكدام بي ولله دمانتين كما هسنتين عاو او كلام ملس كنترول كلمات عاو او كنترول مجرو مك انجينيري waxaan ku leeyahay hambaliyadu wala kafeelata lamba afkiisu kastow inta ka hambalay macnaha waxa ka dhigata qofka markii oo khiriyoodo luqadu yaqaan inuu ku hadlo oo ku faaro ay wax kasta ka weyn fad marka caaw madaxan far engineer waxaan ku leeyahay koobka saddexaad shaaha maraa marka insha Allah anaka waxaan nahay garabkaada nahay insha Allah mar kastada haddii loo baahdo caawin iyo wax kasta iyo tale iyo tusaale qofka ku dayda tahay macallinkayga tahay walow marketing wax badan aan kusoo shaqeysay aan korka la socdo mararka qaar way dhici kartaa qofka inuu ilduufo programka ma ku ilduufin laakiin wili dadkii wili soo noolaanin laakiin ani ahaan nin active ah oo ka ahay waa ka socdaa laakiin insha Allah wala kala engineering haddii aan doogay fahantay hadii kale boqol tiba fartoor lahaa ma hasanto sida aanki sharafaas sida walkasni gudbiyas sida ninka ilaaliyaas waliyaabaha oo qaladka ah wala kala hadhawaaw ma hasanto waana ka bahay waana sheekanaga meega waa ma sintii nawantii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مدن موجي آد أيام كو سلام يا فيد وناكسن عاو حوان صح وايا فانو ولا فريق ما قلنا برامج كعاو ضد وحيلين ورين مع الريال وقتي نوغو درا يل كديسه عن مركله سو دويه ان شاء الله ان مدن ليدا هوغاميه هليه waxaan ku tilmaamaa hadee iskama socon karna moogtahay bilo cismaan faarax soo dhawo ayaan ku leeyahay haddii aad maqlaysa insha allahu tacaala maygana la wareeg dhankaaga ayuu soo jiraa microfonku insha allah bismillahi raxmaan raxiim leaderska kala duwan ee barnaamijkan ku wada jira aad baan u salaamayaa iyo maaragtay sidoo kale waxaan si gaar ah ugu hambalyeeynaya injineer maxamed jaamac oo maaragtay guul weyn gaaray sidoo kale teamka aad ula soo shaqeeyay sidoo kale waxaan hiigsanaynaa inaan meeshaas sare aan gaarno marka sii dheeray maayo marka waxaan leeyahay hambalyo halkaasaan u wada soconnaa marka hal iska qabsado insha Allah tacaala waana wada guuleysanaynaa
marka halkaas ugu baxaya insha Allah. waa tahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Soomaali waxay tiri hadal nin yarayeyna kama tegin, ku badiyeyna ma dhammaynin. aad ayaad u mahadsan tahay insha allahu tacaala. asxaabta sharafta leh mar kale fiid wanaagsan ayaan idin leeyahay. ma soo koobi karno hambalyada iyo sidoo kaleeto aynu u wadno injineer maxamed jaamac sahal. profesorka aad baan ugu mahad celinayaa. sidoo kaleeto halkan waxaan ka salaamayaa labadayda abline Europe iyo sidoo kaleeto abline mama Habibo Maxamed. aad baan wada salaamayaa insha Allah, laakiin markay kari waayeen ninkii ila soo hadlay isagana aad baan ugu salaamayaa halkan insha Allah tacaala. طبعا network marketingku waa inta uu inoo sheegay injineer maxamed jaamac sahal. waxaanan filayaa insha Allah tacaala in maaragtay asxaab badani halkan ay caawa insha Allah tacaala ay kaga dayan doonaan injineerka talooyinka iyo sidoo kaleeto tusaalaha uu ina siiyey. sidoo kaleeto waxaan soo dhaweynayaa insha Allah tacaala mudane Khalid Ahmed. waxaan leeyahay Khalid soo dhawow insha Allah tacaala adiguna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي واقع بالسلام يا صاحبت عاوسون كسوق بشيء. waxaan u hambalyeynaya injineer maxamed jaamac runtii oo gaaray darajada dheemanka uu waqti iyo juhdi u geliyay. runtii wax walba oo waqti la geliyana aakhirkeeda la gaariyo miraheeda. runtii dheemanka markay dadku maqlaan waxay dhahaan meel la gaari kara maaha, waa dad badan baa la iska rabaa. runtii injineerku wuxuu nuqsay in la gaari karo oo weliba waqti dhow oo mataqaanaa yar oo qofka ku gaari karo. kaliya waxay u baahan tahay inaad dadaal samaysid, waqti gelisid, aad mataqaanaa waxa aad ka shaqaynaysidna aamintid oo waqti fiican aad siisid. runtii aad baan u hambalyeynayaa inteena caawa suumkan ku jirta oo dhegeysanaysana. waxaan u rajeynayaa inay wada gaaraan insha Allah oo hadafka xaqiijiyaan. injineerkana waan u hambalyeynayaa iyo leaderska sida daadihinaya iyo macallimiinta iyo dhammaan mar walba markii la guuleysanayo teamwork markii la yahay dadku wada shaqeynayaan way fududahay hawsha in la wada guuleysto. marka dhammaantiin walaalayaal khayr baan rajeynayaa guul iyo gobonimo insha Allah inaan wada gaarno. baan rajeynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan. aad baa mahadsantihiin. aad buu mahadsan yahay macallin Khalid Ahmed. macallin Khalid maasha Allah waa liidarka ugu dadaalka badan ee inoo soo sameeya boorarka quruxda badan, sidoo kale ardayda ka caawiya ama asxaabta Live Good lacag la bixista. maasha Allah macallin Khalid hawsha badan ee uu qabto aad baan ugu mahad celinayaa. jazakallah. waxaan soo dhaweynayaa liidar millionaire Ramla soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان فاميلي لايف كلهم السلام يا دمانتود. دمان دتك عصب حاجة سولك قاعدنا يا عيجنا والسلام يا ما شاء الله ما شاء الله. وحن هالكن همبلية على السوق وبكرنا قدر يا ليدر محمد جامع سهل وما تنقاري درجة دائما كما شاء الله حبيبي دائما نتذكر عيار معها ما شاء الله. waxaan leeyahay liidarka hore u sacayaan leeyahay hambali kun coacher waana u mahad celinayaa sida quruxda badan aniga ahaanteedii teamkayga uu inoo caawiyo haddii training noqoto, haddii ay noqoto wax ku saabsan shirkadda aanan fahansanin sida quruxda badan mar walba inoogu jawaabo. waxa ugu muhiimsan oo qofka bini'aadanka uu bixiyo waxaa weeye waqtigiisa. dee qof hadduu waqtigiisa ku huro waqtigiisa kusoo bixiyaan waxaa weeye taas waa another level weeyaana. حتى محاذي مهد عرس حتى محاذي مهد عليك تقول وقتي كسور ما شاء الله. حاوي هدان ده إنجنير كان باليدي صار حاجة كسور كوبية. حاوي وأنتو بريوها بين كده عيا ما شاء الله. وجيس يقول سايا يعني كل يعني أنا وضد هذا ينصايا ما شاء الله. درجتي والسيلفر إنه حنشوا بدلك كينيا إنجنير كوهم بلينا حكى لوهم بلينا يا حاجة نعم كسلام يا عندما لي درسك قاس هم عوهم بلينا يا habeenkayga geesiga mar walba ku doodaydo inaan jidkiisa raaco. Dr. Axmed Cabdirasaaq Farangaal Kacyo xaggan baan ka salaamayaa iyo liidaradeeda qaaliga ah
ay soo gaarsiisay fursadan dahabiga ee shirkadda Lifegood liidar Xasna Maxamed Maxamuud saaxiibteeda marna hooyadeeda halkan baa uga hambalyeynaya waxaa idin leeyahay dhammaantiin guuleysta horay u soco ballanteena waa Diamond shaqo badan hadal yar hawl badan hadsinidin dhammaantiin waa tahay aad iyo aad ayay u mahadsan tahay maasha allah milyaneeradu waxaan ku yidhi dhiigeybana kicisa waana firjisay waayahay mahadsanid ayaan mar kale ku leeyahay insha allahu tacaala soo dhawaada barnaamijku faaran ole weli fari kama qodna waxaan soo dhaweynayaa haddii ilaahay yidhaahdo sheekh maxamed xaaji axmed soo dhowow ayaan ku leeyahay insha allah kelmadaada iyo sida oo kaleeto mataqaanaa hadalkaaga inaad halkan ka soo jeedisa ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala ablaynkanagana aad hambalyada la wadaagto ku darsada oo ninkan laftirkiisu nin sakhiran ma ahan maasha allah soo dhowow ayaan ku leeyahay mudane والله السلام عليكم ما لي مغلا aad iyo toos السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا لها دمان ليدرز كوه هريان داديها شين قيمها بدن قف كستا مجي عيسى منسب كيسا مالك سو جوغا أياك السلام يا عوضة waxaan ma garanay runtii aad iyo aad baa waxa maasaysanahay hadalka xitaa uu kala tagtagaya kulka hore waan hadalku fiicnayd halkan waxaan hambalyo kale yalaaba uga dirayaa walaalkeen macalinkeeni coachkeeni hageheeni dhiirigeliyeeni iska wadaadii caawada way socotaa intaasoo magac kulli uu leeyahay injineerka aad iyo aad baan uga hambalyeynayaa runtii waxaan kaloo ku dari lahaa uun wax kale ma kusii dari lahayn keliya waxaan dhihi lahaa intuu injineerka noo sheegay qof kastoo rabo inuu guulaysto inuu rabbigii ku xidhnaado waalidkii u samafalo wax kastoo samaynaysidna inaad dulqaad u yeelatid macnaha runtii injineerka waxaa meeshan ku soo gaaray waa dadaal iyo dulqaad marka waxaan dhihi lahaa qof kastoo meeshan ku jiro caawada wax kastoo cudurdaara ka dhigan lahayd waa lagaa jebiyey waa la fudeydiyey wax kasta oo excuse samayn kartid malaha yacni haddaa leedahay darajada way adag tahay dee qof adigoo kale 9 bilood ku dhashay soomaali kule luqadda ku hadlo ayaa gaadhay marka cudurdaar dhan ma jiro dhammaanteen meeshaan u soconno hadafkeena maaha Diamond laakiin meeshaan ku nasanayno ee bustaa yara dhiganayno maaragtay tarasaan ku nahay waa Diamond qof kastoo hamigaa lahaa sii laba jubaad haddii aad hamigaa korkor kugu jirina hadda go'aanso caawadaba balan garayso meeqa bilood ayaa Diamond ku gaari kartaa marka caawada waa la badan yahay hadalkan uu kala tagtagayaa aad baa inii salaamaya qof kasta magaciisa ku salaamaya injineerkana kaliya laab ayaan ugu hambalyeynaya injineer guuleyso annagana waa kugu soo xignaa insha allah horay u soco meeshaadi maaha si laba jubaar dadaalka ku leeyahay aad baa inii salaamaya dhammaantiin aad buu u mahadsan yahay sheekh maxamed runtii caawa waxaan u taagannahay farxadda Diamondkii ugu horreeyey East Africa kasoo baxa khaasatan hogaamiyaheenna liidarkeenna coachkeenna macalinkeena jaamac aad buu u mahadsan yahay waan uga mahad celinaynaa darajada uguna hambalyeynaynaa meel kasii sarreysa iyo crown Diamond iyo darajada ugu dambeysa ee Lifegood waa rajaynaynaa dhowaan inuu soo xaqiijin doono insha allah Dr. Siraaji haddii khadka uu ku shaqaynayo microphone ka furan kartaa soo dhowow بسم الله الرحمن الرحيم دكتور هو والسلام يا وداد مقشان واحد الله يا هاي ما شاء الله دمانتين همبليو جلسنا أو رنتي هجامية معقولة أو سبيكر بابر سبيكر أنا وحنا لي براد سودو دمانتين واحد الله يا همبليو مكلا ريبيو براونزر إلا يدامن عاوة مركزتا أيام همبليو كسعتها حتى وحي قاعد وهذا لقاها اللي زوم كلام كجري وهذا بدو قلي waxaa ka hadlay Timler waa blighting waa Diamondkii 27 ayuu noqday Maxamed Jaamac ma sha Allah hambaliyo Maxamed Jaamac soo dhaw engineer aad baan ka hambalyeynaya dhammaantiin jidka uu walaalkay Maxamed Jaamac tusay waa jidka ugu fudud ee qof walba uu hamigiis ku gaari karo waa albaabkina uu noo furay mahad Ilaahay baa iskale mahad labaadna walaalkay Maxamed Jaamac iskale dadaalka iyo juhud ku bixiyay dhammaan teamka dhan waxa uu kala dardaarmay dardaarankiisa muxuu yahay
waxa la barto haddii wax la barto qofku wuxuu noqon doonaa success qofku waa gaari karaa waxa la barto anna maxaan ku darayaa waxaad qabanaysa jeclow qofka marka wuxuu qaban wuxuu rabo hadduu jeclaado wuu guuleysanayaa marka Dr. Hanad waa ku soo gudbiye dadka fara badan dhamaantii waxaan leeyahay guuleysta maasha Allah Dr. waa ku soo gudbiye assalaamu calaykum وعليكم السلام أبو مهدسن يحي دكتور سراج حسن دكتور سراج وحوها يسيرو كلا دكتور عبد الرزاق حاشي أبلاينس كان الصومالي وضن نسو دارسي كمباني كان حد وين إذا ما أنت نكوري جرنو عاونوا دبال دقينو دايما كي كصباح إيست أفريقيا CEO بروفيسور محمد جامع عويل دعالة ميكروفون كفرنك تسودو عويل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فؤاد باندي سلام يا حياتي شرفت بدن جروب كجيرته waxaan salaamayaa salaan kal iyo laaba salaantii ugu qiimaha badnayd injineer maxamed jaamac waxaan leeyahay maxamed jaamac hambaliyo alfa mabruuk baan leeyahay ilaahay ha ku barakayo meel sare Allah u gaarsiiyo asxaabta dhammaan waa salaamaya liif guud asxaabta midka waxa weeye carraaka iyo kan ugu sareeya dhammaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام أبو مهدسن يحي ميدان عويل دعالة ما شاء الله عاوة لو ما كان عارن همبليدا وحق عمها تاغان هدي أد عربتو أيابيسنا ما شاء الله لما الليدر إسكا آد بانو سودوين نسودو هذا الليدر حسنا أيان سودوين يا حسنا سودو waan filayaa liidar xasna in microfonka ciladu ay ka hayso maasha allah gacmo badan ayaa wada taagan maasha allah caawo kale cidna laga tegi maayo qof walbo gacanta soo taagta fursadiisa la siin doonaa insha allah wuuna hadli doonaa markaa saas dha waxaa u malaynaa gacmo badan in lasoo wada taagi doono soo dhawaada ilaa salaa subax halkana ku jirayna leader siyaad cabdi faarax oo isaguna gacanta u taagan tahay siyaad soo dhawow liidarada waxaan filayaa microfonka in cilad ka haysta qaarkood oo qaabka loo furayo aysan fahmin insha allah waan rajeynaya in liidarada idinka caawin doonaan liidar baraaji ayaan soo dhaweynaya soo dhawow liidar السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدبن دين سلام يا أخيار تمشي سكوجو إماتي halkan waxaan u hambaliyeynayaa injineer maxamed jaamac sahal hambali ayaan leeyahay injineer runtii dadaal badan ayuu muujiyey injineerku inkastoo mataqaanaa ay annagana uu hintaha nagu wadeeyo baalaha uu nagu siday maasha allah horta runtii aad buu u dadaalay annagana uu nala dadaalay oo mataqaanaa annaga laftigeena gold iyo platinum ba maanan ahaaneen isaga la'aantiisa aad baan ugu mahad celinayaa runtii hambali ayaana leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad sidoo kale liidar baraaji ayaduna aad baan uga hambaliyeynaynaa aad bayna u mahadsan tahay liidarada gacmaha wada taagan yihiin dhammaantiinba soo dhawaada insha allah caawa waa habeenkii hambaliyada injineer maxamed jaamac iyo sidoo kale tiimkeena soomaalida oo dhan liidar mascuud haddii microfonka aad furan karto insha allah soo dhawow اوكي اسماعيل محمد شيخ عمر ayaa microfonka u furan yahay ismaaciil soo dhawow aad iyo aad waan dhowahay waa mahadsan tahay gudoomiye waxaan caawa aad ugu faraxsanahay gudoomiyaheenii ableenkeena qaaliga ah ableen maxamed jaamac sahal darajada dhaymanka gaaray aniga waxaan ku jiraa tiimka bile oo hogaamiyahayga koowaad waa bile hogaamihiisa kalena waxaa waa sudeysi halkaasna waxaan ka farxanaa ustaad maxamed jaamac sahal profesorka
waxaan aad uga hambaleynayaa dhiirigelintiisa mar walba uuna dhiirigeliyo oo tiimkana aad u dhiso iyo tiimka aadka u caawinayo marka caawa farxad bay noo tahay in aan hambalyadiisa aan la wadaago farxadiisana aan halkaan ka wada qaybsano waxaan joogaa gaalkacyo qaybta galmudug waxaan leenahay mar walba hogaamiyaheena hore soco insha allahu tacaala annagana halka uu marayaan jecelnahay inaan gaarno allahna gaarsiiyo tiimkana aad baa ugu mahadsantihiin sida aad barnaamijkan nooga daadiinaysaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad hambalya leenahay insha allahu tacaala shukran maasha allah aad buu u mahadsan yahay leader ismaaciil maxamed sheekh dhammaan walaalaha aad baan ugu mahad celinaynaa sida wacan ee hambalyada dhiirigelinta iyo dhammaan ay u garab taagan yihiin CEO injineer maxamed jaamac sidoo kale qof walba oo halkan jooga caawa waxa uu taagan yahay kuna faraxsan yahay diamondkeenii ugu horreeyey ee East Africa kaliya Soomaaliya maahana waa East Africa kasoo baxay in aan u mahad celino dadaalkii iyo kartidii uu halkaa ku yimidno insha allah aan rajeynayno inuu ku tegi doono Crown Diamond iyo halka ugu dambeysa ee la seexan doono leader jalaqsane haddii aad ku jirto insha allah inoo soo gabagabe inoo soo xir waa tahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay leader Dr. Hanad ayuu kaasi ahaa barnaamijka inoo daadihinayay waxa weeye caawa farxadeyda mar hore idiin sheegayo hay qabanina ilma dareero xitaa magacayga haddaan garan kari waayo magacayga xitaa haddii aan garan kari waayo hay qabanina ma garanayo aniga laftirkayga waxa iga reebay waxaan rabaa inaan halkan ugu hambaliyeeyo mar kale injineer maxamed jaamac sahal professorka waxa weeyaan dabcan horta hore maanu isku garanaynin hadda ka hor laakiin waxa weeyaan nin kolley maasha allah nin karmeeda inta maaragtay aan hadda intaan ka garanayo laba kalmadood oo waxaa jirtay haddeer aan laba hogaamiye oo halkan ka hadlay aan ka diiwaan geliyey mid wuxuu ahaa injineer sahal wuxuu yidhi horta waxbarta yes network marketing marka aad samaynayso waa inaad horta adigu wax barataa marka koowaad waxyaabaha aan xasuustana waxaa ka mid ah dadka network marketing markii ugu horreysay 3 bilood inaanan office ka bixin aniga oo raba kaliya ta inaan wax fahmo wax barto network marketing waxa uu yahay kaliya inaan barto oo qura sidoo kale markaynu ka hadlayno nin kaleeto oo hogaamiye ayaa halkan ka hadlay deedna wuxuu yidhi waxaad jeclaataa waxa aad qabanayso taas waxay isoo xasuusisay macallin masri ahaa hadda ka hor oo hadda ka horba macallin soo ahaan jira mogtahay marka macallin masari ah oo xilligii dugsiga dhexe markii aan ka baxay dugsiga sare bilaabay ayaa dugsiga dhexe hoose dhexe ayaan shaqo ka samaynayay sidaas daraaddeed waxyaabuu nugu dhiirigelin jiray waxaa ka mid ahaa jeclow shaqadaada laakiin marnaba ha jeclaanin meesha aa u shaqayso waxay doontaa ahaato waxa aa u shaqaynayso ha jeclaanin laakiin shaqadaada jeclow professionkaaga jeclow ayay ayaduna isoo jeclaysay ayay isoo xasuusisay that means inaad network marketing tahay jeclow ku faraxsanow ku qanacsanow ku faan yani waxaad tirahdaa waxaan ahay qof ah marketa amaba maxaan la yidhahdaa suuqgeeye aad iyo aad ayaad u wada mahadsantihiin insha allahu tacaala hogaamiyahan haldoorka ah isla mar ahaantaasna mataqaanaa halyeyga ah maxamed jaamac sahal waxaan leeyahay madaxa dushiisa meel laga salaaxo meel ka sareyso oo la salaaxa ma lahan hambalyo runtii life good waxyaabaha aan ku arkay oo cajiibka ah waxaa ka mid ah daday 5 sannadood ka hor igu dambeysay 4 sannadood ka hor ayaan groupka life good dhexdiisa ku arkay magacyadoodii iyo sawiradoodii ayaga oo loo dabaaldegayo cajiib waxa weeyaan meeshan horey injineerka ayaa u sheegay waa la isku arki doonaa insha allahu tacaala dad badanna waxaan rajaynayaa noloshooda inay bedeli doonaan asxaabtayna soo gaarsiisay waxaan leenahay mahadii ha idinka gaadho insha allahu subxaana watacaala waxaana rajaynayaa halka ugu sarreysa crown diamond inaynu isla gaari doono waxyaabaha qosolka miirana waxaa ka mid ah injineer maxamed jaamac sahal ee aan ka bartay qosol ma ahan xaqiiqatan waa dhab waxyaabaha aan ka bartay waxaa ka mid ah in inta aan waco uu yidhahda jalaqsanow nini isug ma laga yaabay 2 saac kadib marka aad ku celisan inuu ku yidhahdo niyo diamondkii weli ma soo taabanay isug that means yool baan leeyahay yoolka ha iga dhex gelin waxa weeyaan muhiimaddu waxa ay tahay qof walba hiigsiga iyo himiladiisu hortiisa ha ahaato
طبعا dhiirigelin waxa inoogu filan intii caawa ay hogaamiyayaashii hal doorada ahaa ay inoo soo jeediyeen guntii gabagabadii iyo gunaanadkii ayaynu isla soo gaaray insha allahu tacaala qofkii rabo inuu hadlo gacanta waa uu soo taagan doonaa haddii kalena barnaamijkanaga intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa insha allahu tacaala soo dhowow ayaan ku leeyahay Dr. Hanad barasho wanaagsan kusoo dhowow mar kale liidar jalaqsane aad buu u mahadsan yahay runtii oo caawa si aan inaba caadi ahayn barnaamijka inoogu daadihinayay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa walaalihii xiisadda kasoo qayb galay ee isugu jira leaders marti sharaf iyo dhammaan qof walba oo xiisadda kasoo qayb gashay CEO Engineer Maxamed Jaamac maalinkii barnaamijkan aan usoo bandhigay runtii waxay iila muuqataa in shalay oo kale ay ahayd wax badan hadda kama soo wareegan waa February bilowgeedii maantana waxa uu joogaa Diamond insha Allah waan rajaynayaa waqti dhow haddana inaan u dabaaldegi doono isaga uu joogo Crown Diamond insha Allah qof walba yoolkiisa iyo higsigiisa haddii uu ka dhabeeyo fikirkiisana uu xooga saaro meesha uu rajaynayo uu gaaraya insha Allah ilaahana la garab galaya waxaan aad ugu mahad celinayaa CEO Engineer Maxamed Jaamac oo runtii dabaaldegiisa aan caawa halkan u fadhinay leedar jalaqsane oo xiisadda ila daadihinayay dhammaan walaalihii kasoo qayb galay ee leaderska ahaa sidoo kale marti sharaftii caawa kasoo qayb gashay aad baad u mahadsan tihiin dabaaldegu oo inoo sii socon doona guruubyadeenna qolalkeenna tiim ahaan ayaan usii wadi doonaa insha Allah waxaan idinkaga mahad celinaynaa kasoo qaybgalka aad kasoo qayb gasheen xiisaddan caawa qaaliga ah ee dabaaldega diamondkii ugu horreeyay East Africa dhammaantiin aad baan idinkaga mahad celinaynaa habeenku ha idiin wacnaado waqti wacan ayaan idiin rajaynaynaa xiisaddeena caawa halkaa ayay inoogu xiran tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu